waxaa dhacda markaas qolka iska gala guriga cidada qolkii maqribkii la jooga biyo waxaas la keenay wixii waa matay ila la maal xumaan cunin culayska halkaas iga bilaaway noloshii waxay u noqotay cariiri meel kasta oo iga soo xirantay noloshii meel kasta indhahayga si guduud ay ka dhan guduud wax mararka qaar iftiinka waxa iga tagay nuurka indhaha iga tagay aniga dhan waqtigii markii la gaaro habeenkii waxaa marka habeenkii dhan waa soo jeedo hurdo waay xasuustii wax walba maalinkii waxaa la keenay waxyaabaha kaniiniyaal iyo waxaas si aan xoogaa u socdaa wixii la siiyay xoogaa waa meel dabal marka wax yaraan seex ayadoo saas ay tahay markii haddana wixii iga baxaan subaxii awalan hurdo fiican hurdaynin laakiin waxaa dhacayso meeshii waagu markuu bariyo meeshii waxay ooyinta iga bilaabanay ooyinta waxyaabaha aad ku xusuusta waxaa kamid xilliga salaad subax ee iga caawi jirtay mar walba maadaama telefoonka markaas inta igsan inaan u kaco salaada inaa salaad dukato salaad subax aad ku kacin jirtay markii salaada la gaaro telefoonka gariir iyo xirnaa gambalal oo ay ku xiray dhahdo anaa ku xirto markii soo dhaco subax ku kaco ama waqtiga soo jeedkayga inta amaad aad u badan yahay waxaan dareemayaa wax kasta nolosha cariiri totally waa bixi waay dadka qaar dad imaado asxaaba jiray dadka qaar qofba soo kula hadlaa qof iska dhaha hada filmaanta ma badsatay qof uu ku fahmaa dadka way kala duwan yihiin adiga bil ma aana bixin bil gurigaas iska dhex joogay noloshii dhan cariiri adeeg meel walba marka maalmihii ciidda waxaa dhacday ciidaa la gaaray 3 maalin 4 maalin waa la ciiday masaajidka iska aad anoo qabaysan intaasoo maalin xitaa oo wayse qaadanaya bis masaajidka khamiis aan iska baxay dadkii wada faraxsan yihiin ciid baashaala lagu jiraa anigana kii aan watay yacni khamiiskii yarkaa buuxsan ilinta ilaa dadaa faraxsan oo dabaaldegayo maalin ciido waayo anigana maalinkaas markasta waxaan dareema marka noloshii hamigii iyo wixii aan lahay aan sugaayay ama yacni waxaan nolosha ka damacsanaa iyo wixii qorshahayga dhan waa isbedelay sababtoo qorshahayga dhan tiirka waxaa tiir u ahaa iyadaa tiir u ahayd dhan walba markaan wax samaynayo tiirka iyada ahayd waxa kas idan ku biskari jiray gurigaas noloshaas way duntay sagxaday tagtay markii aan joog waayo sayd aan xanuunsaday aan yaawayo 14 quraanka la saaray tabliiq aan raacay masaajidka fasaxan qaat masaajidka alhidaaya waxa la cad asbuuc joog masaajidka dhexdiisa halkaas si aan dadkii aan u joogo meesha xoogaa waa iska roonaaday laakiin mar walba waxaan ku seexday habeenkii inaan kiniini wax cuno marka waa la joogay waxaa dhacda marka inaan ku riyoono habeenkii markaan jirto bis marka maadaama riyoon qofkan kusoo laalaabtaan waxaad dareemaysaa wixii wax cusub ay kuu noqonayaan zaaid bis marka waxaa maalin go'aansaday inaan tago qabriga iska aado mana aqaan ilaa maalinkaan tagay miirkayga ma fiicnay bajaajaan qaatay suuqa xore i geysay bajaaj marka meesha ma aqaanin suuqa xolaha halkee marka ayad ku dugneed ceel carfiid meel oo dula suuqa xolaha marka bajaajyo kale meesha ugu tagay qaada maasha allah gabdho waxay raaceen markaasi asxaab ahaayeen oo xaaladdeeda la socday aan meesha tusay meeshaan tagay mar adii 6 saac 5 saac meelahaas camal inta u dhaxaysay 8 saac gabdho iska baxaan dhaha marka anaa joogahay markaasaa qabrigaan iska dhex fariistay fadhi gabdho waxay dhaheen kaa tegeen meeshaan kuuma tegi karin meeshaan cidlada 8 saac markii la gaaro aniga iga caddaa inaan iska joogaba waxay dhaheen markaa tegeen giyon soo baxa hadalkoodii aqbalay waa iska soo baxa gurigaan kusoo laabtay
markaas qabriga aan joogo wehelaan dareemaa macnaa waxaan dareemaa wehel markaan kasii waxbaan dareemayaa anoo mafahant markaan laakiin haddana markaa kasoo dhaqaaqdid adoo macnaha safraya lamid tahay oo ka tagaa meeshiiyo waxay iga dhigantaa markaas anoo xabaanta ka duulay banaanka u baxay ay iga dhiganta markaan kasoo tagay isku soo laabtay marka halkaas mar maahana dhowr jeerna waa tegey markii bil markaan joogo hal bir waa tagaa dartaada waa fahma cidna uma sheego waa aadan midna ma dhaho qofna iraac ma dhaho maadaama meesha aan fahmaa waxaan dhaha iska baxa marka saacada 4 saac 3 saac 5 saac iska soo jooga kadib waa iska soo laabana qorshahan intaan nool waa u jirtaa marka noloshayda sidaasay ahayd waxaan xilligaas isbedelay ama noloshayda dhan waxay noqotay adduunka dhanba wuxuu la noqday wax meaningless ah 100 jeer haddii wax laga sameeyo ama haddii wax iga halaabaan awal macnaha micno igu fadhiisa wax micnaha ma igu fadhiiso ilaa wax markii waxba ma arka wax weynba ma arkaba maxaa ku tilmaami kartaa isku leedahay qof ibni aadan heerka inaad jeclaato waalida ah oo xitaa markuu geeriyoodo qabrigiisa ka dul kicilaada dayaxow adduunka qof waalidkiis dhinteen oo waashay ma jiro ama uu yari hadduu jiraan laakiin boqolaal waxaa la helaa adduunka waalan dadka adduunka qaba dadka mentaliga ama dadka waashay markii la fiirin gabar la guursaa waalata hooyada ma dhimata marka tusaalahaas waxay kaaga markaas ka tusaysaa wax ka xanuun badan ma jirin waalidkay u soo waceen oo waxaan dhahay maba aaminsanayba maanta wax ka xanuun badan ma aaminsan inay soo maray ilaa haddana saas aaminsana yacni nolol haddii xanuun leedahay iyo haddii farxad leedahay way soo martay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo awood ma u leedahay inaad samayso xiriir labaad oo ka duwan kii hore bal haddii aad is leedahay waad degi kartaa dadka way dhahaan qof kasta wuxuu ku leeyahay si u soo kabaytid xiriir samee anigana markii hore maba ahaynba nimanka naagaha badanoo oo tan la soco maahayn targetkeyga aad u yaraa marka maadaama waxaa raadinaysa aad u yihiin mafahante hadda laakiin qorshahayga koleyta noloshaas way dhamaatay haddii ilaahay cimri ku siiyana qofka mustaqbal iskaga baahan laakiin waxaan aaminsanahay weli kaama soo goyn inaad samayso xiriir labaad may igma soo goyn ma jiraan wax riski ah oo arrintaa dabadeed aa la kulantay waxaa jiro wax badan riski badan oo galaa jiro habeen waxaa jirta shaqaan oo kasoo baxay oo soo socdo waxaa igu dhacday aniga ooyaan wadada socday ilana iga socdo marka waxaa ujeeda waay markaasaan waxbaan arki waayo meel waxaan fadhiistay marka meel jirdiina meeshan ciidana u dhow meesha lama ogola waa iska fadhiista ilaa wax uma jeediyay ciidankii qar wax istaag qor waa maqluya ani laakiin maba kalaba jecleba waxaasba iguma socdaanba warama ayaaba midkan qoriga qabtan jak waa maqluya qoriga laakiin aniga isku ooya meeshaan fadhiyaaba waa maqluya laakiin carles waxaas wax ka weyn ah mida imaaday soo saas dhaa mar qoriga soo wato hooyta ana ooya arka ma la hadlin ugu soo celiyay hadalka markaas waxaa irniyow ama xabad ugu dhufo ama iga tag ama idil ama iga tag waa adiga yalkada ninkan xanuunsan waaye saas ayay kuwii iga tageen waxyaabo badan waxaa kamid a marka riski taas horta nolosheeda khatar habeenkaas way gashay waxyaabaha kaloo aad u xanuun badan waxaa kamid a jaceylka waxaa ka qayb qaatay saasa ogtahay marka fanaaniin iska taageero iska dhegeysi jiro isbishal ay gaar iska jireen telefonkii wax soo ka wada daleeday marka waxaan dareemaa xasuusi wixii hadda ano isboojeena maskaxdeyda oo wixii iska ilaalina waxa dhacayso marka wixii inay ugu soo dhacaan aan ka cararaa marka adoo barnaamij iskaga jirtid wiilka farsamayaqaanka wuxuu sameynaa heesu iska gelinaa hees imtixaan isku daara markaasaa anu plan ku jira ilana iga maaha ma xakameyn karo in dhammaystiro markaasaan waxaan leeyahay waa dhibaatooyinkan la kulmay kamid tahay bajaaj markaa raaci maagtid midaa kugu daaraa demi waa ku dhaawacaa waa qaybta qayba kamid tahay waxyaaba kaloo aad ku xanuun badan waxaa kamid a
isbitaalkii gabadha ku dhimatay Allah u naxariistay waxaa la yidhi wiil ila dhashaa la qalaya marka waxaan rabnay isbitaalka la geey wiil aan ila dhasha lagu qalay isbitaalka waxaan isbitaalkaas naga dhaaf maya isbitaalkiisa inaan ka wareejiyaan rabo laakiin sheekada aakhir dhakhtarkaa loo baahday qof kalena oo ninka warqama saxiixa ma joogo isbitaalka marka isbitaalka inaan ag mara xitaa awloo ka carari jir meesha mara wadada daan lacala oo dhinac kale kan tusaalahaan hadduu darbuun ku yaal dabka iyo dhinacaasan ka maraa isbitaalkii waa gelaya marka isbitaalka waa ku qasbanayd inaan galo maalinka isbitaalka galaya xanuunkii mid ka sii weyn oo ka sii daran sii dareema haddana isbitaalkaa wiilkii 3 maalin kula jiray waxaan soo hormaraa mar walba qolkii ku dhimatay kiimeedka meeshii dhan maadaama alaab aan waday waxaas dadka qolka ku jira si ii dareemin luuq aan kusoo ooyay cabaar badan markaasi aan nafis oon tiishka wax iska soo tirtiraan oo imaha inuu cabaaraa soo dahaaday oo ku leeyahay isaguna sababtoo qolkii habeenkii aan hormaraa marka sidoo kale wadadii maalinka la qaadayo ma maraba wadadii markaan marayo waxaan dareemaa يعني نلاش إن عريري ونقنا وحيابها مرك هاي كمتها مرك أصحاب أدوس كلف ديدا تذكر قارة مرك والشدة كلف تركيدا ضدك إنه سؤالك هو بدان الغيابة تضبنا ومتقارنا أما ضدك خبر أسألك وقوف وصحيح لأن دخلنا نبي سومالي وحنا خوفكو وحا وديدين مرك لو قاعدون بيدتكو سفعة وسويديان وكما جوجيان سؤاله وكاكو عذر دارا مجرتا حصوص adiga markaa gaar kuga oo markaas maxaa la sheeg xusi karto aad ka noolaan weysi inta markaa hawsha dhibaatada leh ku jirta way jirtaa waxyaaba aad xasuus ugu daran waa xasuusta la xiriirto xilliga salaada subax eedan sheegay mar walba salaada tukana iyo mar walba oo ma telefoonka uu soo dhac maadaama guri isaaran وحصة أكبر حكم إذا كل ما كسر قلها بينك تردين كان في رزيجري ما شو كيلا وحيابا بدن مركا حسوسته مر به تذكر قارب حلقة بنيس آمنين لكن أسبوع ضيحوا أنا تقول سحرته أنا وين مجرته أو إلا حد حالة إلا حلقة إلا حد أسبوعي أول أفراد معلك سمرجر أفراد ناس على بشر 3 شهر أنا إسكوي وح ما قبكر ما أود أنا أسبوع حاجة وكسوكتي ما يعني مالنتي لا مالن 3 مالن هذا مرة قار يعني وحن دريمة لوش مدي وأتكت أنا إسكوي مركز نفس أنا مركز سأسكو عبرنا حسوسكو إلنا سلس إلى كيس أنا وبحساب مركز أنا مال نفسي أنا أسكتو والدك ما مخلان قصدا عدة دن أودوكيهم طالما لقاسي أرنتا كصابس قفك ويد ثلاثة قفك وجابان أما هو كلية أما وير حن قدر واي وحقرنا واي ودان الصبر عند الكورونا هاي مركا ساس اللي كلية مفهوم مركا ويجر هو هذا أبي يسوي هو هذا حتى متقارنا قرآن قوس أقرأ إنسان أسئلة شوقين علماء اسكوعة قرآن والإسارة ومتقارن دول القرآن سياق دورجر مركا قرآن كالإسارة أو تبليغ عن راعي أو علماء بدنا نصر شاكستي مركا أيها جرت وحياباس إن قلبي وحقا متقارنا وحين الدنيا مربح ندي كل استاء وحين الدنيا واي قراجرتو ما دعي ساكم ليه لكن وحول بابا وحبا رجي كل سنين adigu marka ma rajeynaysaa at least inaad maadaama wixii dhamaadeen gabadhan dhimata Allah raxma oo wada duceynayna marka ma rajeynaysaa inaad maadaama dhalinyaro aad tahay welina aanad guursan oo ilma dhalin ma rajeynaysaa oo yani ma ku fakaraysaa hooyadii caruurtaada mustaqbalka mar kale adigo way jirtaa rashadaas laakiin shuruudaa ku xiran shardi ku xiran ama aan qarinin waxay tahay sidaan ah noloshada ida saas
waxyaabaha oo waxaa ka mid ah inaan mar walba ama aan guursado ama yaan guursan ama ilma ii jooga ama ha ii joogaan intaan awoodo inaan qabrigeeda tagaayo qof inuusan anaan dareemi karo xorriyad oo dumarku waa dhaqan iska masir badiyeen ama aad ka sheekaysid nabiga ma ku sheekay jira Khadiijo caasha masir jirta mar walba ka sheekay jira mar Khadiijo waa fiican qofka laakiin arrintaas qofku inuu saacadan aniga ah hadda nolosheeda inaan la soo maray qofna oo ka qarima qisaasan aan soo maray inaan weligii iloobayn qalbigii inuu ku intay mataqaana saas qofkii okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma ku fakartay hadalkaaga hadda su'aasha kala dhex baxay annagoo aan ognahay dumarkeena Soomaaliyeed heerka ay maseerka ka taagan yihiin gabar berri aad guursato oo xaas ku noqotay ma kula tahay adiga markaa caqligaaga xisaabisan ee ogolaan doonto mar walba waxaan booqan doonaa gabar jecel naga dhexeeya qabrigeeda maybe way jiraan dad waa la helaa laakiin way yaryihiin ma ogi hataa gabar maseer aanan aqoon aad guursan doontid maya qofka qisada hadda qisada sababta aan ugu sheekeynayo just waa laga yaabaa haddii gabar maanta daawato meel qisadan ogolaan doontana dee maadaama aanay jirin oo ay gabadhi geeriyootay allah raxma qof ogolaan doono oo normal u arka arrintaas inay hayso waa macquul 70%. waa laga yaabaa waan aaminsanahay sababtu waxay tahay يعني نلاش صحراء واحد تابع قف كواحد أنا قوة أقبله قف كدوس ساعته وطبيعة ده أنا قيبت في يعني قيبت إحنا قوة أقبله قف كسر وده نلا كرتين لكن قف كدو وحياة جار كهردنا شخصية ده أنا وجرت وحنا هاي يعني أساس إن صمر قف قوة أقبل على نلا كرتا لكن قف كدوس قوة أقبل حام سنة إن هذا اللي نلا كرين شخصية ده أنا قف أقبل ساعة هاي تاريخ ده مركز تقف إنه سيفي محاضر كان هذا حال رجال نساء قفكم بريء حديبة أي دعوة حديبة أي دعوة برينا قفنا ولا وذاك دونتو وإلهي القرى وأنا كل رجينا إن شاء الله وحد مركز كو قرشيسن إن قفك أول شيء كيس سيفي قاعد يحاسون قدر مركز البني سيفي كان الأولى سيفي محاط صامرة معناه سيفي قبردا صما يعني نرجع أصلا شقة حاس سيفي واسداس مركز رجال هذا هديك بدأ aad dooran doonto yani soo socoto maadaama aanay hadda jirin waxaa rajeynaysaa haddii gabadhaas ay kugu qaadato arrintaas inaad markaa kadib guursatid laakiin kullit hadda qorshaha jasti guurkuguma jiro hadda qorshaha guuri xiriir midna iguma jiro sababta maba awoodo weli ma kaban ku fuday haddii marka barnaamijkeena waxaan maraynaa meelihiisii ugu dambeeyey maxaa codsanaysaa bulshada Soomaaliyeed ka codsanaysaa inta codkaaga iyo muuqaalkaaga u gaaray waxaan ka codsanahay qof walba barnaamijkan daawanayo hal mid bis adduunka ma rabo laakiin inay u duceeyaan gabadhaas ay dhahan ugu yaraan ilaahay ku naxariisto inkastoo gabar gubatay shahiiday ay tahay maasha Allah oo maantana as leeyahay aad u wanaagsaneed akhlaaqdeeda iyo waxyaabaha hadda aad u xusto waxa kamid ah TikTok أنا استعماله أيضا أجوجس هذا TikTok مستقبل كل ما سمعنا أسكناه أنا وقت بدين استعماله واحد كتير لنا أول ما يكون ذلك أنا ده إسكسارين كأن كسوقات مركب واحد كأسنة ذاتك طيح شو داونه كبلاس يعني سقل بيا وقصد عيان إنه إلهي جنة كورابي وأود دعينا إلهي إن جنة هكورابي adigana waxaan kuugu duceynaa inuu ilaahay culayska ka dulqaado maadaama ay dhimatana waxaan kaaga rajeynaa ilaahay inuu mustaqbalka leh oo ifaayo kuusoo markaasi maxaa lahaa dejiyo si noloshaada usii hagaagto maxaa yeele maadaama adduunya aad ku nooshahay dhalinyarana aad tahay welina aad guurso mustaqbalna u baahan tahay maantana shaqo aa haysato oo nin shaqaysta walba aad tahay waxaa aad u wanaagsanaan lahayd in mustaqbalkaaga hore usii socdo oo ugu yaraan qofku maxaa la dhahaa haddii xitaa uu niyadda ku dhisan kara caruur hadduu haysto wuxuu dhihi lahaa aniga intaana caruur ka haystaa mana u baahnin guur kale taas waa kugu raaci lahaa laakiin weli aniga markii fakarkayga laga eego waxaan jeclaan lahaa kuugu duceynaya in ilaahay mustaqbal wanaagsan kuu sahlo adiga niyadda kuu qaboojiyeedana ilaahay jannada ka waraabiyo intii markaa ehelkeedana ilaahay ka sabr siiyo sidaas waaye aamiin ayaan ku leeyahay deexo koleyto adduunyo
kuleeto qof barajo iyo waxbaa jiray aniga wixii adduunyada aan soo dhisi jiray oo aan dhihi jiray saan samee inta gaar waxaan ku sigtay waxbarashada online kan wada inaan iska xiro maadaama ay lacag iga baxday waxaad dhammeey markaan hadda bal dhammeey hadda iga tahay sababtoo ah wixii aan ka fakarayay iyo wixii ii sawirnay yaana gaarin laakiin wixii moogta qofka rajo ku socda adduunka qofka dus aragti iyo waxaas u muuqan waxba ma sameyn karo waa inaad target leedahay targetkii aniga iga burbura targetka hal mar ilaan qof walba oo meel heer gaaraya ama dadaalaya ama inuu meel gaaro yacni noloshiisa inuu mustaqbalkiisa u noqdo mid qurux badan waay marka wixii dhan aan ka fikiraya hadda gacan kuma hayo marka kuleeto waa iska adduun wax kaloo qadarta in la qaato wax ka wanaagsan ma jirto boqolkiiba boqol adiga waxaan ku rajeynayaa in wax walba ku hagaagaan farxad nolosha kuugu bilaabato hadda wixii ka dambeeyo ilaahayna noloshaada hagaajiyo ayadana ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo adigana maadaama dee adduun iyo socodkiisa lagaa rabo waxaan adigana ilaahay kaaga baryaa in wax walba u baahan tahay wax walba jecleed inuu ilaahay badal khayr qabo ku siiyo waxaan rabaa in halkaa kusoo gabagabeeyo barnaamijkeenii dayax show qaybtiisii qisooyinka oo noo waramayo walaalkay Liibaan Cabdi Warsame oo ugu mahadcelinayo inuu aqbalo inuu dayax show uga waramo qisadan dhibaatada iyo xanuunka badan isagana waa u duceynaynaa walaasheen waxaan leenahay ilaahay jannada ka waraabiyo intii markaasi ku xiran waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo Liibaan waa ku mahadsan tahay aqbalada barnaamijka dayax show aad ka soo qayb gashay aad ayaan kuu soo dhaweynayaa thank you